حتى وحاجه وحيال قار أو أغاكن يعني أمور أقول عن مغلين مثل عن أكين ما كنا ما كنا لكن أنا أقولين تصالحان حتى قف وجو قل ماذا عن وحده المغلين أنا إلا أيجوين شغل إغلاق عن الحين وقف وجو وحده المغلين اسمه كنا هدوش الراديو ومغلية أضل يسوحن كل دون أو كأنه يدوب بالتركيز أنتم محاسبوك وحاسبوك إن فأنا أمرك هذا يعني سوحن كأنا عدك محيها عدك وقل دان كورنتيرير كاسو انت بدن بحسولا هودا لكن دكت بنادك وحي كلي حمل كرتا أما أي مغل كرتا عدد ير أو كوغا كتب مركي إلهي وداه كهوغي داه النحيا أغانتم بني آدمك داه النحيا ومركي إلهي قالي بني آدمك يوعوه هلي أغانتي أوفهمي أهفانسيين كتب وقت اللي فيه إنه سميه راديو إيو تيفيو راديو تيفي مرة من مرة راديو مرة سيدة ده حديقة في ست هل وبيئة عبات إنها تفيرسون وعاد تأكل سمجران إلا يوانتهم بيئة عالية أو سكعب مريفة لكن إذا الطبيعي أيضا هديقة تفيرسون مايكروسكوب أم شيء بارد وحتى كيسا وحيالي يغير أو نوع أو أتغاغل هذا كيسا سيدة سلمة تلسكوبيدا أما وحيالها لو إيغو حددها أما وحيالها فوق ميريا فوق إيغو سيئو موديان أستامها آياتها الله ودقي كونكيسا لكن من حسوسنو لما الفادا نسو الفين أم هندسادا علما عصري آياتها عصرية waxaa bini aadamka alifay kadib markii uu isticmaalay waxyaalaha dabiiciga ah ee ilaahay hore u abuuray walxaha dabiiciga ah ee ilaahay hore u abuuray waxaa ka mid ah hawada iftiinka iyo korontideedka ee hawada dhex socda oo loo yaqaano electromagnetic waves xiriirka koronti ee dhex socda hawada markuu intaas isticmaalay bini aadamka ayuu alifay waxyaalo aan soo sheegnay dhammaantood raadiyaha tv-ga microscope-ka all the things ilaahi subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu leeyahay isagoo natusaya aayadihiisa siduu hore u yimi sanuriihim aayaatana fi l-aafaaq wa fii anfusihim aayad kale wuxuu leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun nafsanteedana miyaadan is arkaynin miyaadan fiirinaynin آية الله يحمل بياننا وتصيا إنها نفسها أنها تسفيرنا شو مشكلة عاوز في لسا آية الله يجرك على فيه تتبر في النفس ومن شيء أن آية أن صلح هذه وأصلح أصلح كيسا حتى أصلح هذه القرآن كما يقول قرآن كما تقول وليه وحاندين يلي وجعلكم السمع والأبصار وحاندين يلي مغل يأرتي أرد مغل يأرد لكن بيانها برد إلى الشيء وليه وحاندين يلي مغل يأرد أنت بدن وحاحر إمارة حرفك مغلك سمع مالك استمعت وحا صوتها أريد السمع وجعلكم السمع أنشاء لكم السمع ما تستطيع السمع أريد حصول السمع عن المرض ما أنت ساينس بحنو شيء حبنك مرضك وحبنها الدرين وليشا والوضع أبوه marka ilmaha ay ku jiraan fahimka hawada marka awasha ku jiraan dareemayaasha lagu abuuray ay ku jirta dhigta markuu ilmaha gashana isla markii dhigtu way shaqeynaysaa saynis yahanada waxay leeyihiin xataa markii uu
uurku jirka uu abuuristiisu kaamil noqdo isla markii dhegta shaqadeeda waa okay. saas darteed saynisyahanada qaarkood waxay ku taliyaan in hooyada uurka leh aysan dhegeysan waxyaalaha qaar maxaa yeelay waxay raad ku yeelan kartaa ilmahooda. arrintaasna waxaa lagu sameeyey daraasado badan lagu sameeyey, laakiin aragga wuxuu qaadan karaa ay leeyihiin ugu yaraan ama celcelis ahaan 3 bilood si uu hakiyo dhaqdhaqaaqa isha, uu u miisaamo iyo si uu u focus gareeyo waxyaalaha uu fiirinayo qofkaas ama ilmaha yar. haddii meel wax fiirinayo dhaqdhaqaaqa isha iyo focuska waxay qaadanaysaa ay leeyihiin 3 bilood markuu dhashay kadib isku celcelis ahaan. sidoo kale ilaahi subxaana wa tacaala markii erayadan soo qaadanayo wajacala lakum samca wal absaara, ereyga loo adeegsaday samc maqal wuxuu ku yimid mufrad ahaan keli ahaan ayuu ku imaado samc, laakiin ereyga aragga inta badan wuxuu ku imaado jamac abasaar. maanta baaritaan iyo daraasaad dheer kadib sayniska wuxuu noo sheegayaa xubinta aragga inay ka mid tahay xubnaha si guud ahaan loogu kontaroolo ama kontaroolkooda hoos yimaado qofka rabitaankiisa. aragga wuxuu hoos yimaadaan waxaa loo kontaroolaa adi rabitaankaadi, meesha rabtaa fiirin kartaa, meeshaas waa kajeysan kartaa, waa wax lagu kontaroolo rabitaankaada. laakiin maqalka waa wax ka baxsan kontaroolka rabitaanka qofka. tusaale ahaan waxaad imaaday meel shil gaari uu ku dhacay oo dad badan ay ku waxyeeloobeen, dad ay ku dhaawacmeen, qaar ay dhigbaxayaan. adna waxaad qabtaa xashashka mise inaadan fiirin karin qof dhigbaxayo, ama aad ka yara sasaysid ama aad ka daraysid dareen noocaasa kugu jira. markii aad soo dul istaagtayba waad fiirin kari weysay oo isla markii waad ka jeesanaysaa, waa simbol, waad jeesanaysaa, midna ma un fiirinaysid, ilan waa ka ashashtay, waad ka diday, waad ka jeesanaysaa. laakiin isla waqtigaas aad jeesatay oo araggaa aad leexisay waxaad maqlaysaa qayladii iyo subaxankii iyo borootinkii dadkii dhaawacnaa iyo dadkii dhibaatada soo gaartay waa maqlaysaa, laakiin araggaada waa jeesanaya, waa jeesi. meeshan waxaad ka ogaanaysaa arag inuu yahay wax laga kontaroolo rabitaankaada, uu yahay xulasho selective, uu yahay optional, waxaa dhan waa selective optional, inuu yahay xulasho iyo wax yacni aad meel diirada marka u saari kartid aad marka leexin kartid. laakiin maqalka uusan ahayn wax xulasho ah iyo wax yani meel diirad loo saarayo, oo uu yahay wax aan ku qasbanahay inaan noqono. sawaxanka waad ku qasban tahay ilaa in muddo aad ka fogaatid aad caragtid mooye, intaa goobta dirtid waad ku qasban tahay inaad maqshid sheygaas agtaada oo dhawaaqay. midda kale dhegtu ma seexato, inta badan way soo jeedaa halka indhuhu ay seexdaan. tusaale ahaan haddii gacantaada aad ku haadiso saan aad ku tiraahdid qof jiifa hortiisa ama indhihiisa asaa gacantaada yeeshid, qofkaas ma soo kacayo, hurdidiisa isku sii badanaya. laakiin haddii aad codka ugu yar aad samaysid, qofkaas agtiisa cod yar aad ku samaysid ama dhawaaq yar, laga yaabaa inuu qofkaas 80% 90% inuu soo tooso. sida ugu fudud marka idin tuso, dhegtu waa leenka ama qadkeenna uu noogu xiran yahay dhinaca caalamka dibadda. waa qad oo aan kala xiriirno outside world, caalamka banaanka. sidaas darteed ilaahi subxaana wa tacaala markii asxaabul kahf ay godki galeen, ilaahi wuxuu sababay inay jiifaan 100 sano
keliya wuxuu daboolay maqalkooda suu ilaahay leeyahay suuratlkahf aayadda 11 wadarabnaa calaa aadaanihim fi lkahfi siniina cadada waxaan daboolnay maqalkooda markay dadka ku jireen dadka dhexdiisa sanadooyin ayaan maqalkooda daboolnay